Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Holland ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo dhawaan xilka gobolkaasi la wareegay waxaana lagu sii sagootinayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir General Mongab. Munaasabadan ayaa dadkii ka hadlay waxa ay sheegeen in ay aad u bogaadinayaan gudoomiyaha cusub ayagoona kula taliyay gudoomiyaha inuu wax ka qabto arrimaha ammaanka iyo musuqmaasuqa. sidoo kale dadkii munaasabada ka hadlay ayaa waxaa hadaladoodii kamid ahaa hawada u marsiinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu noqdo gudoomiye qabta shaqooyinkii looga baahnaa gobolka Banaadir inuu noqdo nin soo celiya amniga runtii caawa si maarata aad shucuurteeda u sarreysa ayay xafladda u dhacday gudoomiyihiina waa uu soo hadlay runtii ummadda Soomaaliyeedna wixii la hadli kara talooyin ayay siiyeen haddii aniga aan gaar ahaan ka hadlo talooyinka aan u jeedinayo asaga waxay tahay maarata magaalada Muqdisho waa caasimadii dalka hooyo hadday toosto dalka intiisa kala dhan waa ficnaanaya waxa saaran gudoomiyaha mas'uuliyad aad u weyn marka hore waxaan leeyahay Allah ku fududeeyo mas'uuliyadda weyn oo aad qaaday tan labaad waxa laga rabaa ummaddu Soomaaliyeed maadaama ay caasimadda wada deganeyd inaad dadka aad isu keento marka caawa waxaan jecelnahay inaan muxuu soo dhaweyno walaalkeen Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale martida sharafta oo ka soo qaybgashay ee xafladda loogu magac daray Yuusuf Xuseen Jimcaale lagu soo dhaweynayo laguna sii socodinayo Xasan Xuseen Mongab شغل قوم العابو بدن شيخ يوسف إلهي وحن كبر يا مدان ما هذه النقطة يقولون ربك يساعد عن كبر يا وضلك يضل هيكون مستعد هو اسمه كينا شيخ يوسف قولي سواريه أنا قوشهاي gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa qadka telefoonka ka soo galay magaalada Muqdisho asagoona dadweynihii ka soo qayb galay xafladii asaga lagu soo dhaweynayay u sheegay in loo baahan yahay in dadka ay dalka dib ugu soo laabtaan gaar ahaan gobolka Banaadir iyo gabdhaha inay ku dhawaaqeen marka dadkii gabadh iyo wiil waan idin mahadcelinayaa intii dadaalka samaysay iyo inta joogto ka soo qayb gashay dhammaantiinba waxaan igu dhiirigelinaysay supportaad keenaysay siyaasad ugu dhiirigelinaysay hawshan walaal mara inaan gudano waxaan is leeyahay dadku gudaha iyo dibadda aadan wala soo dhaweeyay xaflado oo qiimo badan ayaa noogu qastay oo taageero ah arrintaasna sababteeda waxay tahay dad waxay naga sugayaan haddii ay waxay naga sugayaan aysan naga suuragelin ama aysan naga imaanna waxaan isleenahay dadaalkii ay sameeyeen dadkaani waa khasaaro marka annagoo la kaashanayna liina abuurtay waxaan aad iyo aad xooga u saari doonaa waxaad naga filaysin inaan qabanno Sheekh Yuusuf waxaan kaa rabnaa haddii alla ku idmaaho dadkaan oo dhan waa faraxsan yihiin qof kasta oo qurba ka timaad oo aqoonteena wadata oo Soomaaliya inaad qof kasta oo Soomaaliya oo aqoonteena wadato ku timaad inaad aqoonteena ku tixgeliso